ولا ليال وحين إن شاء الله تعالى ما أنت خطبتنا وحير كتل ما مدونا بل كلمة وناكسن أراه وناكسن إيا سامين تأي لا هاي إيا أهمية أي قفك مؤمن كأي صفة أي ولا هاي وحكم إذن تلمام الدونا انت كهر وحين من بركن وقد عينينا ولا لهنا فلسطين هدي هبين أي قراعيان ديارها يهود أو أي عداوة أي مسلمين توهيان أي كأرقصنيان إيجو أو مرولبا dhulkoodii intay qasbeen haddana inay shacaa'irtoodii muujiyaan u diidaya wax ilaahay subxaanahu wa tacaala wax loogu mahadnaqa ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku guuleeyey ahlu ghaza wa ahlu qudus inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgoodii iyagoon guul la sheegi karo gaadhin in ay ku dhawaaqeen inay xabadii joojiyeen xalay labadii habeennimo waxyaabaha duruusta laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah dadka muuminiintii waa dad isku qalbi ah meel kastoo ay joogaan dunida meel kastoo ay ka joogaan qalbigoodu waa wada jira guushoodu waa hal guul cadowgoodu waa hal cadow waxa weeye qalbigay ka wada socdaan dadka muslimiinta duca bay la garab taagnaayeen dadka muqaawamada iyo iska caabinta wadaya ahlu ghaza waxay yuhuudda tusiyeen iyagoo wax walba laga xidhay inay haddana macnawiyaad ay ku shaqaynayeen oo intaasoo kunoo saaruq sida iyaguba xisaarka iyo cunaqabataynta ugu jireen inay yuhuuddu ay awoodi waayeen inay ciidaan marka maanta oo jimco ah oo ay ciidayaan ay farxadii iyo nasrigii ciddu ilaahay shahaado u doortay shahaadadii heleen ayaynu halkan uga ducaynaynaa intaa kadib walaalayaal waxaynu wax yar ka tilmaami doonaa sidaynu tilmaanay kelmadda wanaagsan oraahda wanaagsan waa ta qofka ku maqlaya faraxti gelisa waa ta qalbiga hanata waa ta athar wanaagsan iyo raad wanaagsan qofka qalbigiisa kaga tagta tacaamulka wanaagsan iyo kelmadda wanaagsan islaamka ayaa inagu barbaariyay qofka muslimkiina waa qof wanaagsan hadalkiisu wanaagsan yahay ficilkiisu uu wanaagsan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad aad u tiro badan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramay marka ay qismada iyo dhaxalka ay timid ilaahay waxa uu tilmaamay dadka soo xaadiray ee goobjooga noqday amba xigta ha noqdaan amba qaraaba ha noqdaan amba masaakiin ha noqdaan amba waxa weeye yataama iyo agoon ha noqdaane in waxna laga siiyo hadal wanaagsanna loo dhaho وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا سيدوك الإله سبحانه وتعالى وحوت المامي قفك مسكين كأي وحكو ويديسنا إنا لهروف إلهي بأوحليه سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر قفك وحكو ويديسنا مسكين كأه هقول قولنا وهروف أي وحوانا أكسنا ذو هلي كرتتسي سيدوك الإله وحوت المامي سبحانه وتعالى قول معروف هذا الوناكسن إينا القفك مسكين كأود القادة أيا كخير بدن صدقه أدراعسد أذى يباطي من نشيقت أدراعسد بالله الله سبحانه وتعالى مركل إله سبحانه وتعالى نبي محمد بو أمر سينيا هداد وحويد دتكي أذكر رجيني أنا هنتي مال نحريس أو هنتي أنا هشيد هذا الوناكسن دتك أوده إيا وحا وناكسن إيينا وحرجينا سيدود إن شاء الله هذا حسين دونتيد وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا هذا الوناكسن والدبعسن كله بإله الله سبحانه وتعالى سجود دتك أوردن أيا وحو إله الله سبحانه وتعالى هذا الوناكسن كل قولا وقولوا للناس حسنا دتك وحد كل قوشان أو تراهدان هذا الوناكسن إله سبحانه وتعالى وحو سجارة دردارمي لبدا والد إن هذا الوناكسن أو دبعسن لقو يراهدو فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلهي وحو لي أفها كؤرا يا هذا العكضي قضودان هنقول قول وقل لهما قولا كريما هذا الوناكسن أو دبعسن أو نحريس كل هنتهي كل قول لبدا والد إلهي وحو مركلة المامية سبحانه وتعالى حتى قالكي marka dacwada iyo khayrka loo gudbinayo in si wanaagsan oo xigmadaysan in loogu gudbiyo
إلهي سبحانه وتعالى عدوغي وينا فرعون أي نبي الله موسى إيه ولكن نبي الله هارون وأدريا إلهي وحولي سبحانه وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فرعون أتقوى وحد قدبيه فرعون وحد كتر هذا قولا لينا هذا الوناكسن وحال أركا إنو وان توبو أما إلهي كعب صد إلهي وأقيهي إن أنو وان توبين آنو إلهينا كعب سنين لكن وحكمة يدردارنك لصينا يقفك داعيقه ولا ليال سيداسا إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي dadka muuminiintiina waa dadka mar walba oraahda wanaagsan ka raaca hatta hadii lagu xad gudbo wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kuwa wax ma garatay markay la hadlaan salaam bay iraahdaan salaam bay u taagaaneen lama hadal xun kuma celiyaan oo hadalkooda xun kama jawaabaan mar kale ilaahay waxa uu tilmaamaya hatta hadii la doodaayo dadka ahlu kitaabka iyo dadka gaalada ah in si wanaagsan oo aan muran iyo ficiltan doona lahayn ee xigmadaysan in loola doodo wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan hakula doodin bi ilaahi subhanahu wa ta'ala ahlu kitabka ila dooda wanaagsan mooyaane sidaas ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu la dardaarmaya marka oraahda wanaagsan qofka soo muumini waa sifada laga rabo inuu la yimaado rasuulku alayhi salatu wasalaam taasuu tilmaamay كلمة وناكسن قفكو وحلق يابا إنو كهالله رسولك لي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وحلق يابا قفكو إنو كهالله كلمة إلهي الرالق لنا يسو كلمة وناكسن أنو لينين إني ملفق قاري دونتو إلهي سبحانه وتعالى وقرأ يا كلمة درتد رضوان كيسي الرالي أهانشيس إلهي سبحانه وتعالى كسينا إلى ما ننتهي قيامها رسولكنا عليه الصلاة والسلام وحاو تلمامي إنو تشنده الضمانات قادا أيو قفك كعد كادا لبديسا قرد انت ودنا حيسو عرب كيسا iyo qofka labadiisa lugood inta u dhaxayso ibtiisa qofka ka adkaada inuu janno u ballan qaadayo sida daraadeed walaalayaal kelmadda wanaagsan iyo qofku carabkiisa inuu waxa wanaagsan ku carbiyo waa dardaarankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kelmadda wanaagsan iimaanka ayay kamid tahay rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut قفك إلهي يا مالنت قيامها رميسني خيرها كهلا أم بهايسك آمسو قول كات كهلا يسا هالنقطة إري وناكسن أم بهايسك آمس برسول كله عليه الصلاة والسلام كلمة وناكسن ولا ليال وكلمة إلهي سبحانه وتعالى كهنوني ضدك مؤمنين تا أو إلهي صفات كودا وقدقي أو إلهي سبحانه وتعالى وحاوت المامية وهدوا إلى الطيب من القول وحلقوها نونيي ولقوها جدتك مؤمنين تا الطيب من القول أراه ذا وناكسن هذا الكوناكسن أي علماء كفصرين كلمة توحيد كلا إله إلا الله أي إله سبحانه وتعالى كهنوني معنى مر والباحي قوليان أري وناكسن كلمة وناكسن ولا ليال وصدق ورسولك حت المامي عليه الصلاة والسلام xubin kasto ibn aadamka in sadaqa maalin walba lagu leeyahay oo cadceedu ay soo baxdo waxyaabaha sadaqada ka gudaya waxa kamid ah oo rasuulku tilmaamay labada qof oo cadaalad sameeyay sadaqa kugu jirta qofka oo daabadiisa aad ku kaalmaysid inuu fuulo oo aad walaabto u qaadid sadaqa ku jirta amba waxa weeye kelmadda wal kalimatu tayyiba sadaqa wa mahallu shahidku kelmadda wanaagsan waa sadaqu rasuulku alayhi salatu wassalaam erayga wanaagsan aad ku qowlaysid waa sadaqu rasuulku ku tilmaamay alayhi salatu wassalaam culimadu markay tilmaamayaan bal sadaqada iyo kelmadda wanaagsan shabaha ka dhaxeeya waxa ay tilmaamaan sadaqada qofka miskiinka markaad siinaysid waa uu ku farxaya kelmadda wanaagsan markaad ku tidhaahdid waa uu ku farxaya sida daraadeed bay labadii sadaqaba ay noqdeen sadaqa uu qofkii miskiinkii uu ku farxayo
wajhu shabahuna halkaasuu ka dhaxeeya kelmadda wanaagsan walaalayaal qalbigay hanata oo qofka waxa weeye wanaagay u horseeda rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam tabassumuka fi wajhi akhiika sadaqa inaad u muusootid ood u dhoola cadaysid qofka walaalka oo kelmad wanaagsan iyo tacbiir wanaagsan aad tusisid waa sadaqa buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam kelmadda wanaagsan walaalayaal waa kelmadda looga baahan yahay qofka ummadda khayrka u sheegaya ilaahayna uu ku amaanay waman ahsanu qawlan mimman dacaa ila allahi وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كأره ونكسن بإله الله سبحانه وتعالى قفك إلهي درتي دتك أقوياريا عملك ونكسن الصمية وقال إنني من المسلمين كو قولي إلى هذا مسلمين تعين كم دحي كلمة ونكسن ولا ليال سدا أين تلماني قفك قلبك أيو كهنتا إلهي بتاك مرخاتك عي سبحانه وتعالى إلهي وحاو تلماميا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة حسنة إيا وناقة إيا حمانت مص النبي إله الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن وحاد كل عدا أرنك كيسة وناكسن وهدوق في كحمايو كو فعل وناكسن وقل جواب بإله الله سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم qofkii xumaantu idinka dhaxeeyay cadaawada iyo colaatanku idinka dhaxeeyay waxaabad arkaysaa isagiyo qof xigto oo xigtadiisu aad u xeel dheer tahay oo xamiim iyo waxa weeyaan jacaylka iyo wanaaga uu ku hayo aad u xeel dheer yahay ayaad arkaysaa qofka wanaaga aad ugu bedeshid xumaantii waxaad arkaysaa qalbigiisa oo ku soo jeesaday oo qalbigiisa xaggaaga jira sida daraadeed ba waxa la oran jiray الحر يستعبد باللسان قفك حرطة وحال عبيد سدا أو قفك قف أرليض هوك لو النقضة هذا الكوناكسن أوراه ذا وناكسن كلمة وناكسن ولا ليال وحايك قول تهولا قول يسنيا شيطانك أمر والبكفة إذا يستا إن يدتك مسلمين تا إحدود الشحناء يعلاتا ويمادو سيدا درادد بإله الوحي سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وحد أضومها يكتر هذا نبي محمد هكو قولانو هاي راهدان أراهد وناكسن يمد تيذا وناكسن أراهد تيذا وناكسن هكو قولانو هذا الوناكسن هاي استعمالان إن الشيطان ينزغ بينهم شيطان كل إحدود أياء فسهادين هذي أراهدا كتغانو أراهدا حن أي كو قولان إحدود أيو كفا إذي سنيا وحمان بوكلا إحدقيا شيطان كنوا عدو أيو إنسان كوية هي عدو دي سعد يستي ولا ليال أراهدا وناكسن وحالوها لا دنب داف إلهي سبحانه وتعالى قفك أراهدي سواناتيا قدام بدافايا رسولك عليه الصلاة والسلام وحويري إن من موجبات المغفرة وحيابها واجبين يدا بدافك وحاكمت بذل السلام وحسن الكلام إنه قفك السلام السلام عليكم كولي مادو أو سلام أمضى مسلمين تا وحسن الكلام يا إريق وناكسن يا هذا الكوناكسن أياد دم بدافك لجوه الأبو رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ليال كلمة وناكسن وحال لجبت بعد النار تأيا لجبت بعد رسولك عليه الصلاة والسلام وحليه اتقوا النار ولو بشق تمرة نار تإسكحك سي الصدقة حبأها تجحت مرئه فمن لم يجد فبكلمة طيبة قف كان هيلين أو صدقة وحو كبحية واينة أراهد وناكسن هلا يمادو تاسا صدقة أو نار تهيسك حكسي يبو رسول كله عليه الصلاة والسلام ولا ليال كلمة وناكسن وحالوغوها لا جنة أيا لغو قلا رسول كائنات المامي عليه الصلاة والسلام في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها جنة وحا كسوغن رسول كله عليه الصلاة والسلام قريو dusheeda iyo dabadeeda laga arkayo waxa gudaha ku jira
gudaheedana laga arkayo wax dabadoo macna sida muraayadoo kale la iska dhex arkayo waxa yaa iska laba asxaabtu weydiiyeen oo faqala Abu Malik al-Ash'ari liman hiya ya Rasuul Allah Abu Malik al-Ash'ari ba weydiiyay guriyaha aadka u quruxda badan aadka u dhalaalaya yaa iska lay ya Rasuul Allah rasuulku wuxuu yiri alayhi salatu wassalam liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa ba'ta qa'iman wan-nasu niyam waxa guriyaha aadka u quruxda badan jannada ku yaala iska leh liman ataba al-kalam qofka oraahdiisa iyo kelmadiisa wanaajiya oo masaakiintana quudiya habeenkiina markay dadku hurdaan isagu noqdo mid u taagan cibaado qofkaas iska leh rasuulku leeyahay alayhi salatu wassalam marka rasuulku wuxuu lahaa muujibul janna it'aamu at'aam wa ifshaa'u as-salaam wa husnul kalaam waxa kamida waxyaabaha jannada waajibiya inuu qofku salaanta faafiyo cuntadana masaakiinta quudiyo husnul kalaam hadalkiisana oo hadal wanaagsan oo ka dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalka wanaagsan markay waxa weeyaan dadkii muuminiinta ay sifadii ay adduunka ku lahaayeen ay noqotay ayuu ilaahay hadalka wanaagsan ugu abaalinaya maalinta qiyaamaha la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salama salama hadalka wanaagsan nabadgelyada ah ayuun bay jannada ku maqlayaan lagwi iyo dambi toona ku maqli maayaan jannada buu ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala kelmadda wanaagsan walaalayaal وتا رسولك نوت المامي عليه الصلاة والسلام راد وناكسنا وإلادهي قفك مؤمن كان وحل صفدي سؤيتهاي إنه قف دبعسن ونقضه أو قف هذا الكيس وناكسن يهي ونقضه تاسانا سامين تقولي هاي ضبضنا إسلام كصوق وحي كو إسلامين وأراه ذا وناكسن وكلمة ذا وناكسن وحويا ومقالة يا إريقا وناكسن أيا كو إسلامين رسولكنا عليه الصلاة والسلام isaga ta hormood inoogu ahaa maalin maalmaha kamid ah ayaa gaaladiiba waxay u soo direen quraysheed nabi maxamed bal inuu wuxuu doonayo la soo ogaado nin la oran jiray Utba ibn Rabi'a Utba rasuulku yimid alayhi salatu wassalaam waxaad haysid bi rasuul Allah haddaad gabadh wanaagsan doonaysina gabadha kuugu wanaagsan baanu ku siinaynaa haddaad boqortooyo aad doonaysidna boqortooyada ayaanu ku saaraynaa boqorka iyagana ka dhigaynaa haddaad hanti doonaysina hanti baanu ku siinaynaa eraya aad u tiro badan sheeko badan buu soo taxay oo waxa weeyaan uu ula tagay rasuulka alayhi salatu wassalaam wa kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam dadka ka ugu wanaagsan buu rasuulku ahaa sallallahu alayhi wasallam ugu dabeecada wanaagsan rasuulku ma hiifin ma dacwadayda iga soo horjeeda isagoo afka ka xumbeynay lama hadal rasuulku erayga wanaagsan uu yiri bal u fiirso rasuulku xiir alayhi salatu wassalaam afaragta ya abal walid erayadii iyo wixii hadalkii ma dhamaysay wa abal walidna kunyada inta badan carabtu waxa loo isticmaali jiray qofka la ixtiraamayo qofka la karaamaynayo sida daraadeed buu rasuulku leeyahay alayhi salatu wassalaam abal walid hadal kima dhamayso ma iga baxaysa aniguna aan sheegto oraahdayda wa akhlaaqdi rasuulka alayhi salatu wassalaam maalin kale rasuulka alayhi salatu wassalaam nin dhalinyaro ah ayaa u yimid ninku dhalinyartii waxa uu ka codsaday inuu rasuulku u fasaxo zinada alayhi salatu wassalaam rasuulku ma hiifin ma huruufin indahu mu gulgulin rasuulku alayhi salatu wassalaam waxa uu yiri soo dhawow kadibna waa aqli caliyay hooyada maad la rabtaa maad la jeceshahay maya buu yiri edada habaryarta walaasha maad la jeceshahay maya buu yiri ya rasuulallah sidaas oo kale ayaanay dadkuna hooyooyinkood iyo walaalahood iyo edooyinkood aanay ula jeclayn ayuu rasuulku ku yiri alayhi salatu wassalaam kadibna rasuulku uu duceeyay Allahumma ghfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah ilaahayow u dambi dhaaf oo qalbigiisa taahiri oo farjigiisana ilaali ayuu rasuulku ugu duceeyay alayhi salatu wassalaam sidaasuu rasuulku alayhi salatu wassalaam waa erayga wanaagsan iyo saameynta uu leeyahay rasuulka alayhi salatu wassalaam mararka qaarkood yahuudda ayaa u iman jiray iyagoo habaaraya rasuulka alayhi salatu wassalaam
markaasay waxay ku oran jireen assaamu calayka yani geeri dushaadu ha ahaato oo way habaari jireen kadibna maalin maalmaha ka mid ah sidaas oo kale assaamu calaykum ay ku yiraahdeen kadibna Caaisha oo maqlaysay ayaa u jawaabto markaasay tiri lacnad iyo habaarka iyo geeriduba dushina ha ahaato rasuulku xiriya Caaisha la ima soo dirin inaan hadal xun iraahdo hadalka xunna tabiicadayda ma aha ee iska dhaaf kadibna waxay tiri yaa rasuulallah oo miyaadan maqlayn waxay ku yiraahdeen rasuulku xiriya Caaisha oo waxaan ku iri miyaadan maqlayn waxaan ku iri wa calaykum wixii leedii yiriba waatihiin inta aad itidaahdeen ba idinkana dushina ha ahaato rasuulku calayhi salaatu wasalaam lamu caytamin hadal xunna muu oran ee wuxuu yidhi waxaad itidaahdeen idinkana dushina ha ahaato sidaasuu hadalka wanaagsan saameynta u leeyahay waxyaabaha la tilmaamo waxaa ka mid ah walaalayaal nin Ibraahim ibnu Adham la oran jiray oo taabiciyiintii ka mid ahaa ayaa maalin maalmaha ka mid ah nin yahuuduna inta u badan dabeecadoodu waxay tahay hadal xumaanta iyo gafka tabiicad bay u lahaayeen kadibna waxa uu ku yiri ninkii yahuudiga isagoo raba inuu ka cadhaysiiyo oo uu hadal xun ku yiraahdo ayaa waxa uu ku yiri yaa Ibraahim waxaad iiga warantaa garkaaga iyo ayga dabadiisa keeba nadiifsan kadibna Ibraahim ibn Adham hadalkii kama caroon wax kalena kuma oran ee waxa uu ku yiri garkaygu hadduu jannada ila galana isagaa ka daahirsan oo ka nadiifsan ayga dabadiisa haddii uu naar galana ayga dabadiisa ayaa ka nadiifsan garkayga intaas ugu jawaabay kadibna ninkii yahuudiga aad buu isla yaabay eraygii ninkii islaha ka cadhaysiyo sidoo xikmadaysan ugu jawaabay kadibna halkii buu shahaadii oo ku qiro yiri ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasuulullah walaalayaal waxaynu ku soo uruurinaynaa imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kitaabkiisa marka uu qorayo sahih al-Bukhari ayaa intaanu kitaabka bilaabin ba waxa la yiraahdo maalin maalmaha kamid waa uu riyooday waxa uu ku riyooday isagoo oo babinaya rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kadibna nin culimadiisi kamid ah ayaa uu riyadii u sheegay kadibna ninkii waxa uu ugu jawaabo riyadu ugu fasiray إنك تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت آيات كالدفاع عيسى كببنيسا رسولك عليه الصلاة والسلام كلمة السامين آذو بضن بيكو يالطي حال كيبا وحال إرادو حقو آنكو قاطي إنو دبقلو أحاديث رسولك كأن صحدي عليه الصلاة والسلام كدبنا وحا وقرأ كتاب كيس صحيح البخاري أو أصح كتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب كأقول صحيح حسن مركز الأركان إرادة رواه البخاري آن لأراني حديث كاسي طلعوا ما صحيح بقى مسوى ضعيف مركب اللي حكومة إنه صحيح يهي أيا أقري كلمة داس أيا صامين كيالتي كلمة دا وناكسني ولا على السامين وناكسن بين لا ضحي قف كستنا ولو جبه هي عد كستو أو قفك كلا قولية إنك ضدك صومالي دي طبيعة قف قلف سنانت يا أضيق وحن مودنا إني رجعني مطعي لكن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أي حدق إنه جوها هرمود إنه جوها رول موضل إنه جوها إنه كده يننا أي مضنتها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسولك إلهي سبحانه صلى الله عليه وسلم بإله الله سبحانه وتعالى وحيدين كسجن كده يشونا أحسن ولا لا الوحين أبا هنهاي إنه جرجنا إنه كبلونه أو قفكو أم برج هالنقطة أم بهويين هالنقطة إنه قلبي أولادنا إنه هننو أو أوريوين كان قلبي جود هننو أو إرجع وناكسن وصفة وناكسن إنه النقطة لما ديدنا وحي وناجا إلا الشيء لكن وناجا صحيح ما ضيسم أو قفك قلبي جيس أدهنا يسد إن أدقول شيء تد أي لو بهيه قفك داعية لو بهيه أي حكمة دا يو أرجع وناكسن الدعوة دا ومدة جارسينية إنه سوى ناكسن وجارسيو قفك معلن كلو بهيه إنه سوى ناكسن ولا رقمه أرجع وناكسن كوير هذا أرديسة أئمة يدتك ومدة مضحدة واه أي لو بهيه أرجع وناكسن يرفق يدبع سنان إنه موتيان لو بهيه قفك الصوم مسلم كالنتو دونا كتيره
ereyga wanaagsan waa looga baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu sifada wanaagsan inooga dhigo sifo wanaagsan oo dabeecada inoo noqota إلهنا سبحانه وتعالى جنديس أين كهلنا ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث قال رب العزة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما